sirdoonka waddanka Turkiga ayaa waxaa la sheegay in ay ka saacideen dowladda waddankaasi Ciraaq in gacanta lagu soo dhigo ku-xigeenka hogaamiyihii hore ee ururka Daacish Abubakar al-Baghdadi. sirdoonka waddanka Turkiga ayaa waxaa iskaashi ay la sameeyeen ciidamada ammaanka ee waddanka Ciraaq. howlgal horseeda ayaa la yiri in lasoo qabto Sami Jasim al-Jaburi, kaasi oo lagu eedeeyay ayaa la yiri inuu ahaa mas-uulkii maalgelinayay kooxda dowladda islaamka la magac baxday ee Daacish, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Reuters. warbixinta Reuters ay soo saartay ayaa waxaa lagu yiri iyadoo lasoo xiganayo saraakiil dhinaca amniga ah in al-Jaburi uu ku dhumaalaysanayay deegaanada dhinaca waqooyi galbeed ee waddankaasi Suuriya inta aan lagu qaban ayaa la yiri howlgal horseeday amaba howlgal ay iska kaashadeen ciidamada militariga ee Turkiga iyo sidoo kale Ciraaq, ka oo lagu bartilmaameedsanayay ayaa la yiri koox ka tirsan kooxda dowladda islaamka la magac baxday. dowladda waddankaasi Ciraaq ayaa waxa Isniintii ay sheegtay in ciidamada ammaanka ay gacanta ay ku soo dhigeen Sami Jasim oo isagu ah muwaadin Ciraaqi ah, waxaana la tilmaamay in lagu soo qabtay howlgal ka dhacay xuduudda. ilaa ay hadda tafaasiil dheeraada ma jirta ayaa la yiri goobta rasmiga iyo sidoo kale waqtiga la soo xiray. al-Jaburi waxa uu ka mid ahaa hogaamiyaasha kooxda dowladda islaamka la magac baxday ee Daacish, kaasi oo la soo xiray hadda. waxa uu ku-xigeen u ahaa hogaamiyaha kooxda dowladda islaamka Abubakar al-Baghdadi oo duqeyn dhinaca diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka ay ku dileen 2019 waqooyi galbeed ee waddanka Suuriya. waxa uu kaaliye gaar u ahaa ayaa la yiri hogaamiyaha haatan Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, sida ay xukuumadda Ciraaq ay sheegtay. wakaaladda wararka ee Reuters ayaa soo xiganaysa sarkaal dhinaca amniga oo gobolka ku sugan iyo saraakiil amniga oo Ciraaq ah kuwaasi oo diiday magacooda in warbaahinta loo adeegsado. waxa ay sheegeen in al-Jaburi uu isagu ku sugnaa deegaanada dhinaca waqooyi galbeed ee waddanka Suuriya. saraakiisha sirdoonka ee waddankaasi Turkiga ayaa door weyn waxa ay ka ciyaareen in ninkaasi gacanta lagu soo dhigo. ilaa ay hadda labada xukuumadooda ee Ciraaq iyo Turkiga faahfaahin dheeraada ma aysan ka bixin. ra-iisul wasaaraha waddanka Ciraaq Mustafa al-Kadhimi ayaa waxa uu sheegay in soo xiritaanka Sami Jasim uu yimid maalin kadib markii la qaaday howlgal ay sirdoonka labada dhinac ee Turkiga Ciraaq ay ka sameeyeen dhinaca xuduudda. lama sheecinin halka rasmiga ee laga soo qabtay. iskaashigaasi ayaa waxa uu horseeday ayaa la yiri in hogaamiyaasha kooxda dowladda islaamka la magac baxday ee kooxda Daacish hogaamiyaashoodii in lagu soo qabto waqooyiga waddankaasi Suuriya. deegaanada dhinaca waqooyi galbeed ee Suuriya waxa ay marin ay u tahay ayaa la yiri ciidamada mucaaradka ee waddankaasi Suuriya ee la dagaalamaya xukuumadda Suuriya ee Dimashq fadhigeedu uu yahay. Turkiga waxa lagu tiriyaa ayaa la yiri awoodda ugu weyn ee dhinaca gobolka ku sugan marka loo eego markii ay kooxda Daacish ay soo ifbaxday. waxaa la tilmaamay inuu hadda uu taageero uu siinayo kooxaha mucaaradka ee la dagaalamaya ciidamada madaxweyne Bashar al-Assad. wakaaladda wararka ee Reuters waxa ay soo xiganaysaa saraakiil amniga oo sheegaya in al-Jaburi uu ku dhumaalaysanayay waqooyi galbeed ee Suuriya markii ay ciidamadu ay soo xirayeen. laba sarkaal oo ka tirsan ciidamada Ciraaq waxa ay shaacay ka qaadeen in ninkaasi laga soo xiray waddanka Turkiga waqti yar markii ay ciidamadu ay bilaabeen ayaa la yiri in ay ka gudbaan xuduudda Turkiga iyo sidoo kale Ciraaq ay wadaagaan. ninkaasi soo xiritaankiisi waxa horseeda ayaa la yiri sirdoonka wadamada Ciraaq iyo Turkiga oo iyagu macluumaad isweydaarsaday. saraakiisha ammaanka dalka Ciraaq waxa ay shaacay ka qaadeen in al-Jaburi diyaarad gaar ah looga soo qaaday dhinaca Turkiga kuwa oo la geeyay amaba ka oo la geeyay dhinaca Ciraaq. diyaarad nooca militariga Turkiga ayaa ninkaasi lagu soo qaaday. wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Mareykanka ayaa waxa ay shaacay uga qaaday barnaamijkeedii abaalmarinta argagixisada in al-Jaburi uu door weyn uu ku ciyaarayay in uu maalgeliyo howlgallada argagixisada ee kooxda IS. dowladda Mareykanka waxa ay madaxiisa ay dul dhigtay 5 milyan oo doolarka Mareykanka cidii macluumaad ka keenta Sami Jasim al-Jaburi. haddaba waa kuma Sami Jasim al-Jaburi? waxaa la rumaysan yahay in Sami Jasim Maxamed al-Jaburi oo loo yaqaano Xaaji Xamiida inuu dhashay 1970 ilaa iyo 1973 ka oo ku dhashay magaalada Mosul ee waddanka Ciraaq. sanadkii 2004 waxa uu al-Jaburi uu heshiis u la gaaray kooxda at-Tawxiid wal Jihaad oo iyadu ka dagaalamaysa ayaa la yiri dhinaca iyo wadamada Syria iyo Ciraaq, waxaana hogaaminayay Abu Mus'ab al-Zarqawi 2015 bishii February. ciidamada dalkaasi Mareykanka ayaa waxa ay Sami Jasim ay soo xireen amaba markii ay xireen
waxaa la geeyey xabsiga Boca ilaa sanadkii 2010 ayaa lagu hayay, waa la sii daayay markii dambe. 2014 waxa uu ku biiray kooxda dowladda islaamka la magac baxday ee Daacish, halkaasi uu ka noqday ku-xigeenka magaalada Mosul. wasaaradda maaliyadda ee dalka Mareykanka ayaa waxa ay sheegtay in ninkaasi loo aqoonsanayo bishii September 2015 argagaxiyay caalami ah. Al-Jabuuri waxaa la tilmaamay in uu ka qayb qaatay lacago badan oo la siiyey kooxda dowladda islaamka la magac baxday ee Daacish. waxa uu ka iibiyey ayaa la yidhi shidaal iyo sidoo kale gaas fara badan, waxaana uu si sharci darro uga iibinayay macdanta ciriinka ah. markii la dilay ama la qaarijiyey al-Baghdadi waxa uu la wareegay ayaa la yidhi in uu isagu xilka uu sii wado, gaar ahaan malafyada dhinaca lacagta iyo sidoo kale dhaqaalaha ee kooxdaasi Daacish. sidoo kale hadda waxa uu ahaa ayaa la yidhi kaaliye gaar ah hogaamiyaha cusub ee Daacish Abu Ibrahim al-Qureshi inta aan la soo xirin. dowladda waddankaasi Turkiga iyo sidoo kale Ciraaq ayaanan ilaa iyo hadda wax faahfaahina ka bixin xiritaanka ninkaasi isagu ahaa ku-xigeenka Abu Bakr al-Baghdadi.